qaaradda Afrika libaaxu wuxuu og yahay in noloshiisu ku xidhan tahay xuduudda uu maamulo iyo sida kulba uu u ilaashado. boqortooyada libaaxyadu waxay wadaagaan xuduudo waxaanay mararka qaar wajahaan dagaalo ba'an oo iyaga dhexdooda ka dhex dhaca. libaax aad u daaweyn ayaa waxa uu maamulaa Timafati meel loo yaqaano oo ku taala xerooyinka South Africa. sidoo kale waxaa la jaaraa 3 libaax oo walaal ah. familigiisa waxaa loo yaqaanaa Shabelle Bride waxaanay ka kooban yihiin 2 libaax oo dhadig ah iyo 5 agabaroor oo haatan koraya. ka ugu yari waxa uu jiraa 6 bilood waxaanu weli jaqayaa naaskii hooyadii. wuxuu maamulayaa xuduudihiisa tanan waxay u baahan tahay fiiro gaara inaan laga soo gudbin xuduudaha. balse habeenada qaar waxa uu la kulmaa dhibaatooyin ay ka mid tahay in xadkiisa la soo galo halkaana ay ku wajahaan dagaalo ba'an. walow uu da'yahay haddana muddo 6 sannadood ah waxa uu maamulayay halkani. waxa uu muka u harsan uu sii maamuli karaa wanaashan waqtigii da'da ilaa 5-6 sannadood oo dambe. tamartiisa oo dhan wuxuu isugu geeyay inuu la soo baxo doofaarka godka ku jira. walow aanu familiga oo dhan ku filayn haddana wuxuu noqon karaa quraac fiican. balse daaweynaan ku soo baxday iyo muruqyadiisa oo daalan awgeed kuma uu guulaysan inuu soo godka dhameysto. arkii libaaxa kuma uu guulaysan inuu dhameystiro godkani balse wuxuu uga tagay raxanta intii kale halka kii ugu yaraana uu isku mashquulinayo naasaha hooyadii gaajo daran uuna 24 saacadood waxba aloomanin. dhammaan qoyska waxay u tahay giib sugitaana leenay xun soo sanqadhaan qoditaanka iyo ballaarinta godku waa shaqada ugu adag ilaa iyo haatan. kii ugu yaraa laftiisu wuxuu ka mid yahay dadka sugaya ciyaartani. ciyaartii waa lagu guulaystay miniddo gudahoodna waxaa lagu kala goostay doofaarkii oo haatan quraac fiican u noqday boqortooyadani. hooyada qoyskani waa inta ugu badan qaadanaysa kamana shaqeeyo sharciga la yiraahdo feedinku ama quudintu libaaxyada dhexdooda. walow ay ku yar tahay 40 kiilo oo hilib ah oo ka kooban yahay doofaarku haddana waxay uga wanaagsan tahay gaajada oo wax kale ay ku sugayaan. in ka yar saacad gudaheed ayaa loo bedelay doofaarkii lafo. libaaxan weynay haatan waa 13 jir waxaana ugu yaraan maamulayay Timafati oo ah xuduudihiisa muddo 9 sannadood ah. wuxuu ahaa strong leader balse waqtiga uu isbedelay awgeed waxaa haatan u harsan da'diisii muddo 5 sannadood oo kaliya. muddo 3 bilood ah ka hor waxaa familigiisa ka go'ay 3 libaax oo dhadig ah kuwaas ayuu guud ahaanba iskaga tagay. 3 xaar oo walaala ayaa wax iyaguna sidoo kale maamulaan meel loo yaqaano Shabelle Territory oo iyagu xadwa. 3 walaalihii waxay xuduudii ka soo baxeen Timafati kadib markii uu biyay libaaxii aagaas lahaa. libaaxa cidiisu waxay u tahay
xuduudiisa inuu ku calaamadiyo. walaalahani waa 4 jir oo kaliya, waxaanay si fudud u dili karaan wax kastoo isku dayaan, waana qaar aad iyo aad u strong ah. gulahooda istaba joog ah waxay soo jiiteen 3 dhadig ah ee ka yimi Tibafati territory ee uu maamulayay libaaxa da'da ah. waxaa macquul ah inay ku heshiin waayaan libaaxyadan walaalaha ah ee 4 jirada ah dhadigtani oo dhawaan ku soo biirtay. subaxnimadii 2 ka mid ah 3 dhadigta ahaa iyo mid laba ka mid ah 3 walaal ahaa ayaa weli quudanaya raqmi xalag. goolihii oo lagu heshiin waayay iyo 3 libaaxyada ahaa ee walaal ahaa oo mid gooni loo foqoqay ayaa ka dhacday. raqmigii waxaa la wareegay 2 walaal ahaa iyagu gaarka u heshiiyey. waxay meel dheer ka eegayaan walaalkood, waxaana dhici karta haddii uu meesha sii joogo in la dilo oo ay labadoodu dilaan. waa inay ka eriyaan oo ay ka saaraan xuduudooda, maxaa yeelay isagu waa labkuna haddii uu iskhilaafo waa inuu xuduudaha ku kala guuro. haatan waa la eryaday oo keliya, waana mid aad iyo aad u nasiib badan haddii aan la dilin. libaaxa yare wuxuu og yahay waqtigiisii halkani inuu dhammaaday. halkani sharci baa ka jira, hektar kastana waxaa maamulaa libaaxyo ka awood badan isaga, kuwaasay u cayimin tahay una calaamadsan tahay xuduudahooda.